malaayiin hooyo ayaa sanad kasta la kulma khatar caafimaad sababtuna waa calaamado yaryar oo la iska indha tiray haddaba maxay kula tahay inay noqon karaan calaamadahaasi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo caafimaadka magacaygu waa Sagal Cabdilaahi halkan waxaan idinkula wadaagaa xogo muhiim ah kuwaasoo toddobaad kasta ku falanqeyno caafimaadka haweenka maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah kaasoo ah 10 calaamadood oo khatar ku ah xilliga uurka waa marxalad u baahan feejignaan gaar ah waa xilli uu jirkaagu ku dhacayo isbedelo badani markastood fahanto calaamadahan digniinta ah waxaad badbaadin kartaa naftaada iyo nolosha ilmahaaga qaar kamid ah haweenku waxay dareemaan calaamado kala duwan xilliga uurka qaar waa caadi qaarna waa digniin khatar ah haddii calaamadahan la ogaado waqtigooda waxa suuragal ah in la helo daryeel caafimaad oo degdeg ah oo lagu badbaadin karo hooyada iyo ilmahaba aan haddaba si faahfaahsan u eegno calaamadahan qodobka koowaad waa dhiig ka imanaya xubinta taranka haddii aad aragto dareere ama dhiig ka imanaya xubinta taranka calaamadani waa calaamad halis ah waxayna tilmaami kartaa ectopic pregnancy in uurku ku abuurmo meel ka baxsan makaanka haweeneyda taasoo ilmuhu ku samaysmayo tuumbooyinka ugxanta sidoo kale waxa dhici karta in hooyada ilmuhu ka soo qubto taasina waxay keeni kartaa in hooyadaasi dhiig isku aragto placenta previa in madheertu ay ka soo hormarto ilmaha calaamadahani waa kuwo halis ah oo u baahan daryeel caafimaad oo degdeg ah ha fudaysan ee la xidhiidh xarun caafimaad qodobka labaad madax xanuun joogto ah madax xanuunka joogtada ah xilliga uurka waa caadi balse haddii uu leeyahay calaamadahan waa halis madax xanuun xoogan oo la socdaan aragoo daciifay iftiinkoo ku dhibaya ama humaag badan oo aad aragto waa calaamad noqon karta cadaadiska dhiigaaga oo sareeya oo loo yaqaano preeclampsia haddii ay la socdaan barar wejiga ah ama gacmaha ah waa digniin culus qodobka saddexaad xanuun daran oo caloosha ah haddii aad dareentid xanuun daran oo caloosha kaa haya waa calaamad khatara waxayna muujin kartaa placenta abrasion wax loo yaqaano madheerta oo si lama filaan ah uga soo go'da makaanka ka hor intaanu ilmuhu dhalanin isla markiiba tag xarun caafimaad haddii xanuunkaagu yahay mid daran joogto ah dhinac keliya ama la socoto qandho dhiigbax wareer ama dhaqdhaqaaqa ilmuhu joogsada qodobka afraad xumad badan haddii aad dareento xumada jirkaagu inay gaadhayso ama ka sareyso 38 degree taasi waxay muujinaysaa inuu caabuq jiro ama igfashankuna xilliga uurka waa calaamad aad iyo aad u halisa qodobka shanaad neef qabatin ama xanuun laabta ah inkastoo neeftoo adkaataa mararka qaar uurku yeesho haddana waxaa khatar ah haddii aad dareento xanuun ama cidhiidhi laabta ah wadna garaac xaddhaaf ah dawakhaad ama suuxdin calaamadahan waxay muujin karaan cadaadiska dhiigoo sarreeya xinjirow dhiiga ah ama dhibaato wadnaha ah qodobka lixaad barar daran oo wejiga ah iyo gacmaha haddii aad aragto barar badan kaahee wejiga iyo gacmuhu waa digniin waxayna muujin kartaa preeclampsia qodobka toddobaad aragoo isbedela ama daciifa haddii aad aragto iftiin dhibcaah ama humaag madow waa calaamad digniina waxayna badanka la xidhiidhaa cadaadiska dhiigoo sarreeya ama dhibaato keliyaha waxaana muhiim ah in la cabiro dhiigaaga markastood xarun caafimaad tagto qodobka sideedaad dhaqdhaqaaqa ilmaha oo yaraada laga bilaabo isbuuca 8 waa inaad si joogtaa u dareentaa ilmahaagu inuu dhaqaaqayo haddii dhaqaaqu yaraado ama uu joogsado waxay muujin kartaa inuu ilmahaagu uusan helin oxygen ku filan tanina waa calaamad khatar ah qodobka 9aad suuxdin ama gariir haddii hooyadu suuxdo ama yeelato gariir waa xaalad degdeg ah waxayna u baahan tahay gargaar degdeg ah qodobka 10aad daciifnimo badan haddii aad dareento tabardarri aad u daran ood xataa jiifka ka kici kari weydo waxay muujin kartaa dhiig yaraan ama cadaadiska dhiigoo hooseeya waxaana muhiim ah inaad tagto xarun caafimaad ugu dambeyntii uurku waa marxalad adag balse u baahan feejignaan iyo daryeel gaar ah si aad u badbaadiso noloshaada iyo tan ilmahaagaba waxaad u baahan tahay daryeel caafimaad oo buuxa ugu dambeyn intaasan kusoo gabagabaynay 10 calaamadood ee halista ahaa haddii aad ka heshay daawashada muuqaalkan fadlan like iyo subscribe saar intaan ka kulmayno barnaamijka dambeeya caafimaadsan